halkan waxa laga sheegay hadda markii sharciga la qorayay oo la dabaqayay oo dadka guddiga u fadhiyay waxay ka marqaati kaceen hooyo u timid guddi reesiyaado fadhiya oo ku tiri xoolahaas boqolka oo la qaatay 40kiina la siiyay hal la leegma si hal xabba leegma si oo lagu qaracmo markaas geeli boolida 60ka hal looga ceshay waa loo dadaalay wax maanta ka wanaagsan ma jirto shariicada islaamka inta yada waa ku dhalanay waana ku dhaqmi jirnay waxyaabihii yarka ahaayo khada ah oo ku dhex jira xeer Soomaaliga la oran jiray maanta beesha reesiyaad ugaas yar iyo weyn inay maanta ay qaadatay inay si toos ah shariicada diinta islaamka u dabaqdo waa soo dhaweynaynaa anagu matalayaashii maamulka galmudug ku matalay baan aniga wasiirku iga dambeyn doona insha Allah bil kariim shariicada islaamka aad qaadateen ku dhaqankeeda waa in la qaadanay awalna waa ku dhaqmi jirteen haddana wixii xagga dawliga in ka gala insha Allah bil kariim diyaar baan u nahay inaan la dabaqno gacmo in kugu ahaano adeega in kugu noqono maadaama matalayaashii ahayn adinkana aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa waxaan kaliya ka dardaarmayaa Soomaalidu waxay taqaanaa wax laablakac oo marka la joogo wax inta la xogaa la hayiraaco hodhow dib loogu laabto wixii xumaa waxaan ka digaynaa inaan dib loogu laabanin shariicada diinta islaamka kitaabka Ilaahay wuxuu ku yiri ma faradna fil kitaabi min shay hal shay oo kitaabka looga tagay ma jiro wax walba oo yimaadana waa looga heliyaa waxay u baahan tahay kaliya dad yaqaan in la weydiiyo walwalna yaa laga qabino wixii lagu jiray boqolkiiba boqol waa laga baxayaa Ilaahay wuxuu hadiray ku maayay quraanka ku leeyahay waa Allah wastaqaamu ala tariiqati la asqaynahum ma an qadaqan abaartan olaadan fakhrigan dhamaan waa laga baxayaa hadii shariicada islaamka sidii Ilaahay u soo dajiyay loo dabaqo waa laga baxayaa nasri Ilaahay baa iimaanaya qof walba waa ka shakinin hadhiin maanta ay towar isaas leeyahay jiray Ilaahay ba ma keenayo waa laga gudbahayaa Ilaahay baa noo ballan qaaday rasuulkiisu noogu soo dhibay sallallahu alayhi wasallam maanta ay to inaad qaadataan oo dabaqadaas aad qaadataan wax Ilaahay loogu xamdiyo weey inaan islaam noqono shariicada diinta islaamka ku dhaqano maana dooran anagu Ilaahay baa noo dooray alxamdulillah rabbil alamin imisa dad ama hadii ay ku imaa isleedahay waxyaabo badan marka naxariistooda aad fiirsadana gaal ah oo loo rajaynayo khayr dhooban Ilaahay baa noo dooray Ilaahay noo doorayna maanta mar labaad wuxuu noo dooray inuu aqligayga ku soo galiyo oo na waafajiyo inaan qaadano waxyaabihii yaryarka oo khaladaadka oo nagu jiray oo makta iyo diyada iyo qof islaam ah waxa laga sameeyaa dhaqan baa gaaray boqol halaad baa laga sameeyaa mar koowaad waxa leeyahay 33 waa xeer daarood waa la jarayaa 66 iyo shashafkii soo harayna waxa lagu sameeyaa telefoon waxa la yiraahdo hashi Ilaahay u xukumay qofkan dilka kaska loogu dhuftay oo uu reeyday Ilaahay u xukumay baa waxa lagu xukumayaa bataata ma in laga soo qaado $200 waxa laga yaabaa $1,000 inay joogto 66 halaad hadii la isku qiimeeyo 20 halaad qiimeed ma si Ilaahay ka xukmiyay mar labaad agoon xoolihiis aabis la dilay ama hooyadii la dilay yaa waxa la sameeyaa halkan waxa laga sheegay hadda markii sharciga la qorayay oo la dabaqayay oo dadka guddiga u fadhiyay waxay ka marqaati kaceen hooyo u timid guddi reesiyaado fadhiya oo ku tiri xoolahaas boqolka oo la qaatay 40kiina la siiyay hal la leegma si hal xabba leegma si oo lagu qaracmo markaas geeli boolida 60ka hal looga ceshay waa loo dadaalay Ilaahay baa naga soo gudbiyay Ilaahay baan ugu xamdinaynaa yaana dib ugu laabanin mar labaad waxaan codsanayaa haddii reesiyaad ugaas ay qaateen inay dabaqaan shariicada diinta islaamka dilkii iyo diyadii iyo ursigii iyo guurkii ay qaateen beelweynaha reesada daarood Soomaaliyeed dhamaantood ayagoona inay la qaataan oo sidaas uu wadanku ku noqdo wadan xasiloon oo nabdoon oo Ilaahay barwaaqadiisa loo rajeeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.